heshid marka joogteen samee wixii joogtee ku celceli again mataqaanaa kadibna arag natiijada xumaata ma fiicnaato waxa aad okay qodobka saddexaad waxa weeye aragna kula wadaago si aad u gaari ku subscribe si ka badan waxa weeye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو channel ka hadii abartan ku cusub tahay magacaygu waa Cabdullaahi Nasr Cabdullaahi waxaan idaajiyaa channel kan Somali Mamba iskeel waxay tahay oo iskana naas iyo magaca isugu yeero aniga mentality oo maqsuuqada anyway channel ka hadii aad ku cusub tahay subscribe taabo kaliya garac macnaha baakasi what hay'adii maanta laga bilaabo waxaan si joogto ah u soo gelin doonaa muuqaalo every day bro maalin kasta xataa ma jiro break ma jiro inkastoo aan school leenahay inkastoo aan waxyaabo kala qabanayno laga rabo inaan wax akhrino waxa soo dhan iska ilow muhiimada koowaad maanta laga bilaabo waxaan siinayna YouTube maalin kasta waxaan soo gelin doonaa anyway mowduuceena maanta waxa weeye sida lagu helo 1000 subscribers ama sida lagu gaaro 1000 subscribers runtii aad buu dhibaan tahay 1000 subscribers aad gaartid xilligan la joogo hadii aan dad kale muuqaalo la sameeynin oo aan soo dhigay brankio iyo wax la mid ah muuqaalada qarxa waa adag tahay heshid haddana saas oo ay tahay wali waa gaari kartaa wali waa heli kartaa waxa laga yaabaa mataqaana inaad moodayso inay dhibaan tahay 1000 subscribers markii si loo eego waa tiro badan mataqaana markii si loo eegana ma tiro badan yani 1000 subscribers oo badan tahay ma wax badan hadii aan mataqaana YouTube yar tahay anoo kale waxay ku tahay wax badan okay sida aniga aan u sameeyay sida aniga aan ku gaaray baan rabnaa kula wadaago aan bilowna marka muuqaal channelka hadda arkaysid xilligan la joogo wuxuu u dhow yahay wax yar u jira 1000 subscribers YouTube-na waxaan bilaabay waxaan u maleynayaa sanadkii hore bishii shanaad okay maanta waxa bartan u fadhiyaa oo hadlaya inaan kula wadaago adigana sida ku gaari lahayd waxa jira mataqaana waxyaabo fara badan oo mataqaana aad sameyn kartid si aad u gaadhi 1000 subscribers iyo ka badan ba 2000 3000 4000 5000 wixii la mid ah okay marka shayga ugu horeeyo aad sameyn kartid si aad mataqaana dadka u soo jiidatid oo waxyaabo mataqaana dad subscribers aad u heshid waxa weeye inaad sameys labada mid baa dadka YouTuberska 90% ay sameeyaan waxa weeye inay wax baran ama wax madadaalo entertainment iyo education hadii mataqaana hadaan muuqaalkan aan sameeyo hadda tusaale ahaan waxa weeye education weeye waxa mataqaana kula wadaagaya xog yar oo hayo sida mataqaana ku subscribe lagu gaaro mataqaana dadka qaarna waxay sameeyaan madadaalo sameeyaan sida isla cabdi arimaheena waxa la mid ah waxay soo gudbiyaan madadaalo okay 90% 70% ma kooda dadku waxay meeshan u soo galaan inay madadaalistaan oo ay daawadaan wax ka qosliya sidoo ku soo harayna waxay meeshan u soo galaan inay mataqaana xog helaan information baraadinayaan marka adiga hadii aad sameeyso labada midkood waxa fududaanaysa dadka aad heshid raadinaya xogta aad u gudbinaysid nooca muuqaalada aad sameynaysaa yihiin waad fahanteen oo malinaya okay qodobka labaad oo aad sameyn kartid si aad mataqaana subscribers aad u heshid waxa weeye inaad wax joogtisid inaad muuqaal sameynta aad joogtisid waxaan ka wadaa consistency mataqaana hadda eegtid ciyaartooyda Salahan Messi iyo Ronaldo oo kale farqi Messi iyo Ronaldo iyo ciyaartooyda kale farqiga u dhaxeeya waxa weeye labadani waxay leeyihiin consistency waa la dhaho yani 10 sano in ka badan bay waxay sameeyeen wax isku mid ah yani gool dhalinayeen ballon d'or qaadiyeen oo wax mataqaana ka sareysay ciyaartooyda kale marka consistency-ga waa wax mataqaana dadku inta badan ku hurdaan way bro wallahi hadii mataqaana wixii aad joogtaysid natiijo fiican baa mataqaana u baahan tahay ka soo baxdo hadii maanta aad sameeysid muuqaal aad ka dhacid bil oo kala bilood ka dhacid aan wax soo gudbinin mataqaana way adkaanaysaa inaad views heshid kadibna subscribers aad heshid maxaa yeelay YouTube-ka wuxuu sameeyaa wax la dhaho recommendation qofka mataqaana si joogto ah muuqaal meeshan u soo geliya wuxuu ku abaalmariyaa recommendation page-ka inuu mataqaana muuqaaladiisa geeyo si mataqaana dad views ay u helo hadii mataqaana marka meesha laga waayo aad muuqaal soo gelinin marka way adkaanaysaa wallahi runtii inaad views heshid subscribers aad heshid marka joogteen samee wixii joogtee ku celceli again mataqaana kadibna arag natiijada xumaata ma fiicnaato waxa aad okay qodobka saddexaad waxa weeye aragna kula wadaago si aad u gaari 1000 subscribers ka badan waxa weeye inaad si fiican muuqaalada bro u edit gareysid editing hadii mataqaana aniga waxaan qofka ugu badan YouTube daawado runtii mar walba daawado YouTube markasta aan waqti hayo marka YouTuberiska mataqaana muuqaalada si fiican u edit gareyn waa ku caajisaa muuqaal aan si fiican loo edit gareyn qofku ku caajisaya adigana YouTuber ahaan ma rabtid in muuqaalkaaga lagu caajiso bro wallahi ma rabtid aamin maxaa yeelay qofka markuu muuqaal ku caajiso uu ka baxaya muuqaalkii mid kale u gudbaya adigana waxay ku geysanaysaa dhibaato maxaa yeelay waxa jira wax loo click through rate iyo audience retention labada meelood baa mataqaana muuqaalkaaga ka dhigi kara viral ama qarxin kara hadii labadaas percentage-kooda aad u sareeyo audience retention haduu ka sareeyo 50% waxa chance fiican haystaa muuqaalkaaga inuu qarxo oo mataqaana dad badan daawadaan hadii click through rate-kaaga uu ka sareeyo 10% iyo wixii la mid ah muuqaalkaaga uu qarxaya waa hubaal weey marka hadii qofku intuu mataqaana muuqaalkaaga ka daawado 10 second oo kale uu ka baxo uu ka caajiso
maahantii views inaad sii heshid waad kaanaysaa muuqaalkana bartaas ku dhimanaya si fiican muuqaal loo edit gareeyo waxaa jira barnaamijyo badan wax lagu edit gareeyo kuwaas raadso editing fiican samee waqti badan ku bixi kadibna arag wixii mataqaanaa ka soo shayga afraad oo sameynaysa waxaa weeye si aad views iyo subscribers baa u hesho waxaa weeye inaad mawduuca horey ka geshid mawduuca horey ka gal get to the point bro haddii mataqaanaa aad ka bilowdid muuqaalkaagii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalmahan muuqaal ma soo dhigin asxaabta iga raali noqdaa waxaan bisadayda xanuunsatay waxaan geeyey isbitaal kadib markaa isbitaal ka soo noqday waxaan sii maray dukaanka cali dheere waxaan soo gatay yaanyo xaafadda markaa imaadano aad u daalan baa imaaday run ahaantii kadib waxaan wacay saaxiibtay heblaayo kadib waa wada hadalnay kadib bla 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 waxaas oo dhan saaxiib they don't care people don't care bro okay shayga shanaad oo sameyn kartid si aad views iyo subscribers baa u hesho waxaa weeye inaad leedahay niche af Soomaaliya waxaa weeye nooc ama nooca muuqaalada asmiisa nooca yihiin haddii ka soo qaad muuqaalaha ka samaysid gamingka oo gamingka ciyaadid ama aad samaysid muuqaalo commentary ah oo aad cod saadid muuqaalo ama aad samaysid ciyaaraha ka hadashid ama aad ka hadashid filmaanta wixii lamid ah ama aad reaction bixisid dadka mataqaanaa gaarka ah ee nooca muuqaalada xiiseeya baa kugu soo biiri kara marka youtuber kasta waxbuu caan ku yahay waxbaa mataqaan lagu bartaa adiga wuxuu gaar samayso aniga ilaa hadda mataqaanaa ma samaysan wax aan gaar uga hadlo and I want to figure it out as I go by as I keep making videos so niche samayso make a niche kadibna muuqaal ka samee niche-kaas muuqaalka intaan barana ku soo gabagabeeyo aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin daawashada aad daawateen muuqaalkan waxaan rajeynayaa inaan wax ka faa'iiday haba yaraadaan haddii rabaanbe kana raali noqo codkayga haddii xaabib ku jiro xoogaa yani hargab waxay ahaya aad iyo aad baan u mahadsantihiin peace